السلام عليكم تحيته أنا الله يفكر وجهي ذا كان السلام عليكم حيته يا بدنا my brother أحمد شاهور سود دوو المهمة ده أقوى إن المانت هالكانوا صقلوا وحاوين أيدي شيء أصحابي بريان واحد شري البيت مقعي وكقرين هاي مليون تايمز نوان كهذا قرآن ده حسيت عليه وحلو جسوا على سيد إنه دامي هنا عمل ما فهمتين أنا جا إن عدو بدن لا هاي أو ضد بدن وما عرفتي أنا جا إيرادنا إن عدو إسماعيان أو قبائل الإسلام العينايا أو ضد الصومالية العينايا أو ربان أنا جا مقعي أنا كرات كتان أو أنا جا ربنا يكريت جريان عدو ترى بدن يا ترى وقتهن مليون تايمز أنا كهذا لاست يير يدل أنك قيلنا يوم لا بيجت بدن باتشرة أو أنا جا ما عرفت لا يقوم عرفتي إيش شكل بعطينا أيو برياض مقل ما ترى beautiful marka beejka farxiye kaba yar ku qoran tahay magacaygu ku qoran yahay oo sawirkaygu saaran yahay oo ninka xaaraya sariirta ku andaha musqusha siijeedka ugu fadhiya oo siijeedu barada wara maxamed jabuuti waa ku salaamay wara dadkaan u sheeg beejkaas inaan lahayn ma ogaadeen nabca ogaadeen way la dhasheen joojiyo waxa wadaan thank you brother محمد جبوتي halkaas ka salaamay my brother oo dhinacayga maraya wax midin sheega beejka ninka musqusha ku sii jeedo odayga musqusha inta koray labada lugood saartay sii jeestay beejka la soo saaray oo la leeyahay ninkan waa ree hebelaan maqlay xaa ka jiro xataa waxay isku taray garaynayaan sa anigu wax u qoran laakiin uma qori karaan beejkaas million times ayaga oo ma aragtay waliba kaas kaliya ma ahan million isa jirta wixii la rabo lagu soo qoro war anigu qoraal ma isticmaalo xataa aniga qoraal ma isticmaalo aniga waa hadlaa aniga live aan soo galaa ama video kaliya aan iska duubaa marka aan rabay inaan wax ka hadlo mideeda kale anigu wax ma caayo qofkaan aniga isku dhacno ama ay dhibaateeyo waa iska dhiciyaa anaan xataa caynayn aan iska dhiciyaa dadka ma fahamteen laakiin qabiil anigu ma caayo anigu shakhsi haddaan isku dhacno waa iska dhiciyaa laakiin qabiil ma caayo qabiilka meeshaas lagu soo qoray oo qabiilada Soomaalida kamid ah oo la leeyahay ree hebel waaya ama leeyahay ninkaan saan musqusha ugu fadhiyo waxaas waa istubidnimo waa xuusnimo dad badan oo waxa jira ii sheeg rabaan inay magac bulshada ku dhex yeeshaan dad waxa jira inay hadda fanaaniin noqdaan raba oo beejadkaas iska leh ka waramahay beejadkaas dad baa kariyad gareeyay rabaan qof ay xarash u hayr inay dhibaato ku gaarsiiyaan and they want to be a fanaan they want to be a famous waxay rabaan inay magac bulshada ku dhex yeeshaan marka waxaan idin sheegayaa beejadkaas dad baa iska leh aan anigu ogahay oo naqaano laakiin midaa jirta anigu aan ka ilbaxay inaan shakhsi magaciisa sheego taasina waa ka ilbaxay awladan honesty aha dadku evilnimada ayaga ku baraaya brother and sisters ma fahamteen evilnimada dadku ayaga ku baraaya shaydaannimada dadku ayaga ku baraaya qof kasta oo zaciim bulshada Soomaalida haduu ku sii dhex jiro ama uu magac ku dhex yeesho qofka xataa shakhsiyadiisa ay bedelayaan awal daacadan aha waxaan dhihi jiray hebel waa isku dhacnay hebel saan u yeel hadda xariifnimo aan bartay in daaragtii xataa dadka u garaaca soo ma arkinina anoo qof xarash u haaya habeen hore video aan soo duubay clip aan fanaaniin ka hadlaayo ilka cas is my brother way talk waa wada hadalnaa ilka cas aniga waxba kama sheegin saad videoga ka aragteen laakiin fanaanka kale oo ku dhaganaa waxa kariyad garaynaayo clipyada iyo ma aragtay beejajkan waxa kariyad garaynaayo lambar 1 uu ka yahay beejajka aniga magacayga lagu dhaleecaynaayo guulad simba 6 bilood oo iga caynaayo 6 bilood oo social media iga caynaayo official fan page kayga aniga aan lahaa official fan page kayga anigu aan lahaa wariyada oo 6 bilood sanad ka hor aan ka qaylinay ninkii inta badan cayada soo qoray guuladsinba ahaa behind the scene oo ahaa uu isqarinay silent killer oo ahaa haddana wuxuu bilaabay inuu tabeejad kala furay magacayga ku furo sawirkayga ku soo dhajiyo qabiil la caayo and he would be a fanaan ka waran he would be a famous وانا الله هذا يعني هو يسكدعي وانا يسكدعينا قفك فاريق soo galo beerka ugu istaaga beejadka aad aragtaan oo bullshit-ka oo qabiilada lagu caynayna asaga iyo noociisa dad lamid ah kariyad gareeya ma fahamteen dad fanaaniin isku sheegaya kariyad gareeya deewani biya fanaan ma aha hadday rabaan inay noqdaan deewani biya famous wariyada marka aniga haddaad aragtaan qof aan ka laalaado oo aan iska dhicinayo ama aan dhulka ku jiidayo ama aan suxul ula hadlayo qofka suxbaan naga dhaxeeya xarashaan naga dhaxeeyo ilka casamaan caayo ilka casamaan u gafo guulad simple laakiin baraada jaanisaan kugu helo waana ka aarsaday 101 way hadda rabta inaad aan noqoto baraada akhlaaq marka hore yeelo akhlaaq yeelo gabaraan ahay waa ka caansanahay waa ka fanaansanay walaashaha ahay gabar
Soomaaliyeed ah 6 bilood ay caynaysay 6 fucking months wariya 6 months ay caynaysay aad ilmahayga iyo cirdigayga iyo sharafkayga officialkayga taad aniga iska kay dhigtaad waxaad doontaa soo qori jirtay beejajka hadda lagu caaytamayo qabiilada lagu caynaya adaa kariyad gareeyay waxa beej adduunka jirna adaa kariyad gareeyay marka hadda waxaan waad naga badisaayo intaas soo sanaa turki u fadhiday brother odan amal kala lahayn oo guri kula dhixirnayd inaad beejaj kariyad gareyso marka dadkaas iska ilaaliya dadka magacooda dadka inay dhaamaan rabo iska ilaaliya haddaad aragtaan qoraal aniga haddaad muuqaalkayga aragtaan aniga haddaad codkayga aragtaan waa ijaaj garayn kartaan waxaa adduunka ugu nacbahay oo kale ooba igaga sii xun kuwa cadowga ah oo wax kariyad garaynaya waxaa igaga sii xun kuwa aamina oo biliif gareeya waryaad aniga qabiil ma caayo qabaa'ilada Soomaalidu waa isugu kaymid laakiin shakhsigii igala ama imaaga waa iska dhiciyaa ma fahanteen waa idin salaamaya wala badan aan qabsan lahaa camal aan ima hayso thank you so much guys waxyaabo kale oo badan iyo afaaro kale badan iyo howlo badan insha Allah waa idin soo wada barnaamijyada idin ku saabsan love you guys shalala